markaan dhahayo hadda dadkaa shisheeye cadowgaa naga dhaafa ilaa iyo intaanu hortaano ku caloosha isku xadhin maba hagaagi karno waxaa ka mid ah munaafiqnimada aan ku qarinno riwaayadaan isku dhex dhigayno hadda dadka keliya la oran karaa soomaalinimo dhab bay ka tahay qadiyadeeda waa nimankan reexamarka original reexamarka ee dega koonfurta waayo iyaku waxay ku leeyihiin adiga haddaad soomaali tahay calan walba aad sidatii deegaan walba ka imaaw noola soo deg dalkala nala maamul guryaheena iyo xaafadaheena soo deg aan kala gursano shaqooyinka iyo xilka iyo wax walba waxaan diyaar u ahay inaan kala qaybsano at least 4 sano mar xitaa ama 8 sano xitaa aan kula qabto madaxweynenimada laakiinse wadanka sida kale waan wada simanahay waxaad haysatin adiga khaas ah ku ahaadaan laakiinse wadanka ila maamul ila damqo ila dhigaho ila diinaho haygu daawanin dhibaatada kaligeena nimankaasaa loo soo dhaweeyay hadda oo calaamadoodii iyo siyaasadoodii iyo qadiyadoodii wada wata Somaliland Puntland Khaatumadan Jubbaland dhammaan guddigoodba waa wada dhuuqayaan meeshay degan yihiin xilal bay qabsanayaan dalahooda ka dhameysanayaan nin allaale diidaya ma jidho weliba wuxuu ku handidayaa meeshaana kale mana oran kartiin unu kaale marka laga cadhaysiyo reexamarka laakiinse maalinta dhibaato ka dhex dhacdo xamar amisom iyo al-shabaab iyo admis iyo qatar iyo turkiya cid walba markay meesha ka dhex qaraxdo waxa ugu horeeya ee ka baxaysa deegaanka oo tagaya dhulkoodii waxa weeye nimankii meesha ku dhuuqayay xilalka qabsanayay guryaha ku lahaa xafiisyada ku lahaa oo lahaa unukaa leh nama oran kartiin wadankan waa wada leenahay laakiinse idinka hadda markaad dhibaataysantiin waan igu daawananaa weliba waxaan samaynaynaa deer xadkaa igama soo geli kartiin haddaad soo geshin hub iyo rasaas baan u diyaarnahay inaan soo geli karin dhulkeena aflagaaday cayb baan ugu darnaa war dadka eega dhulkooda bay maamulan karin ayaga oo qabyaalad ahaan isku diidan xitaa inay ayagu markay dhulkoodii joogaan xaafad kale ninkii deegaankiisa xidhay inuusan u dhixi karin hadduu u dhaxo ninkan waayo reer hebel soo maaha hadduu waa isku qabiil laakiinse reer hebel isagoo ah muxuu naga soo doonay meesha ma basaas baa miyuunu dilaya yani waa dad xaafad xaafad isku kala urursaday oo xaggaa systemkoodii iyo nidaamkoodii reer ahaan ku wada dhuuqaya laakiinse soomaali weynna raba inay tuumbadda kula xidhaan oo dhahaan hey xilalkan wada qaybsanno aan wada qaybsanno macdanta aan wada qaybsanno siyaasadda laakiinse markaa dhibaatooti waxba aniga iguma lehed iimana imaan karti waanu kugu qoslayaa dhibaatadaas iyo munaafiqnimadaas iyo xaasidnimadaas iyo wadanimo isma gelayso haddii aniga ay ugu xidhnaan lahayd systemka dhan meesha ka socda ayaanba diidi lahaaba completely waxaan cadaalad maaha idinku baa arkaysiin